Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow xirfad kaab. Waxaan rabaa inaan insha Allah saddex qodob oo asaasi ah halkan ku dul istaago. Kow xirfad kaab iyo backgroundka iyo waxyaabaha ay sida u socoto insha Allah si aad u fahantid waxyaabaha aad ka faa'iidaysan kartid. Xirfad kaab haddaynu dul istaagno waxaa la aasaasay 2018. Marka muddo dheer ayaan hadda shaqaynaynaa. Focuska ugu weyna waxa weeye in qofka ama ardaygu uu barto xirfad uu suuqa kaga shaqaysan karo. Waayo qofka waxaa soo baxday 12 sano iskuul dhiganayay, 5 sano ama 4 sano jaamacad dhiganayay, laakiin markuu soo faraysto suuqa shaqada waxa khaasa uu yaqaano ma jirto. Sidaa darteed annagu qofka waxaan baraynaa xirfad khaas ah oo maanta haddaa baratid aad ku shaqo raadsan kartid ilaah idankiina aad ku shaqo heli kartid eebba idankii. Focuskeenu marka waa taa. Saddex qayb baan marka skills baan focus ka saarnaa, diblomooyinna focus ka saarnaa iyo certifications international ah. Saddexdaasaa horta focus ka saarnaa. Qodobka xiga waxa weeye yaa weeye engineer Abyad oo ah CEO-ga ka shaqeeya ama madaxa ka ah xirfad kaab. Waxaan kasoo shaqeeyey ama takhasuskaygu si guud uu yahay IT-ga, maamulka iyo hogaaminta iyo ganacsiga. Sidoo kale waxaan kasoo shaqeeyey shirkadaha ugu waaweyn ee telecommunicationska ah ee dalkeena ka jira iyo startup-yo badan. Sidoo kale businessyo iyo projectyo waaweynna waa maamulay oo 100,000 gaaraya. Waxaan sidoo kale si gaar ah majorly uga soo shaqeeyey saddexda sector oo ah waxbarashada, tiknoolajiyadda iyo ganacsiga. Qofka xirfad kaab markuu soo biirayo meel kastoo adduunka jiro, haddii aadan hore ii arag halkan ayaan sawirkayga kaa tusayaa, waa kaas engineer Abyad. Haddaba xirfad kaab si qofku wax uga barto wuxuu ka baran karaa meel walba adduunka joogo ayuu wax ka soo baran karaa. Curriculum diyaarsan oo step by step ana waxbaad ku baranaysaa. Imtixaano rasmi ah oo aad gelaysid ayuu leeyahay iyo shahaadooyin la verify garayn karo oo rasmi ah. Intaa haddaba halkaa markaynu isla fariisino waxaynu u geli doonaa insha Allah bal appka dhexdiisii sida loo isticmaalo iyo sida looga faa'iidaysan karo iyo sidaad maantaba ugu soo biiri kartid. Haddaba sidaan halkaa aragnay xirfad kaab waxa weeye waa official learning platformka Sahal Global Institute. Sidoo kale Sahal Global Institute waxay partner la tahay jaamacadda Sahal oo qaybta diblomooyinka isa kaashanayno. Sidaan ku sheegay waxaad option haysataa inaad courseska ku dhufatid oo kadibna aad ku dhufatid kuwa aad doonaysid. Ka soo qaad computer application battery, koorsooyinada kala duwan ee computer application ku jira ayaad baran kartaa. Business battery sidaas uga faa'iidaysan kartaa. Taas waa option. Optionka xiga waxa weeye inaadan koorsooyin gaara raadinayn. Laakiin waxaad raadinaysaa waxa weeye waa diploma dhammaystiran oo isku xigta. So diplomas baad ku dhufanaysaa, diblomooyinkiina waa kuwan kala duwanaa. Hagaag. Waxaa marka halkan kugu jira network cyber security, software web development, computer systems and ICT. Tan waa tan IT-ga laga bilaabo qof kasta oo raba IT inuu barto. Sidoo kale qof kasta oo raba inuu shaqo xafiis ku shaqeeyo xitaa haddaa caafimaad tahay, haddaa business tahay, haddaa maamul tahay, wax walba oo tahay tan waajib wey inaad baratid. Diblomada computer systems and IT support waa basekii. Laakiin haddaa IT noqotid labadan takhasus ayaad hadhow mid aadi doontaa oo ah network cyber security amnigii waxa ah iyo web developmentigii. Qofka jecel hal abuuraha wuxuu baran doonaa business entrepreneurship diploma. Qofka cilmi baaraha aanu baran doonaa arday jaamacad dhiganaya oo thesis-ka raba inuu qoro ama qori doona iyo mid dhameeyey labadaba way anfacaysaa. Englishka qofkasi anfacaysaa waa English literature-kii. Tanna waxay anfacaysaa dadka xisaabaadka raba inay kaga shaqeeyaan iyo maaliyadda. Tanna waa mashaariicda maamulistooda. Tanna waxaa lagu baran doonaa logistics supply chain. Waxaa lagu baran doonaa waa sahayda yani isku xirka alaabta procurementigii assetskii storadii waxyaabaha alaab diristii soo diristii wixii oo dhan ayaad ku baran doontaa. Diblomooyinka marka waa sidaas. Haddaba aan isla dul tagno website-ka si guud waxyaabaha uu ka kooban yahay iyo skiiladii oo halkaan faahfaahsan oo aad aadi kartid haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaa marka qofku haystaa 3 option oo ugu soo biiri karo. Waxaan ka iloobay halka qodob oo ah certificationskii. SGI certification waa ku dhufatid oo aragtaa Human Resources Certified haddaad rabtid inaad noqotid, Project Management Certified. Shahaadooyinka waa shahaadooyin caalami ah, waa international adduunka meel kastoo joogtid oo kusoo waa imtixaankooda aad gelaysaa kadibna adduunka meesha rabtid ayaa uga shaqo degi kartaa. Cyber security-gii, research-kii iyo physical security-gii. Way badan doonaan mustaqbalka markaad muuqaalka daawanayso waxaa laga yaabaa halka markaad ku dhufatid inay bateen oo halkii hore ay ka bateen ayaa laga yaabaa. 3 qaab baad ugu soo biiri kartaa marka warkii iyo kooban. Kow inaad rabtid tababarada keliya inaad iska dhigatid.
tusaale ahaan tababarada haddaad iska ka dhiganaysid 3 option baad haysataa inaad bille ugu soo biirtid iyo inaad sanadle ugu soo biirtid. bille waxa weeye markaad 15ka ama lacagta meesha ku qoran aad bixisid waa laga yaabaa in wax iska bedelaan hadhow in billahaas waxaad awood u leedahay koorso kastoo ku jirta bishaas inaad dhigatid meeshaas ama aan soo gelino. sanadlaha haddaad dooratidna sanadkaas oo dhan marka sanadlaha ayaa ugu fiican oo qofkii raba inuu career dhammaystiran tusaale ahaan waxaa rabtaa wixii application ku saabsan oo dhan inaad dhamaysid ama system administration ama englishka ama personal developmentiga waxaas oo dhan martaa inaad dhamaysid ama category kaloo meesha ku jirta oo hadda ka maqan waxaas daarta inaad dhamaysid muddo badan bay kaa qaadanaysaa ilaa koorsooyin badan waxaad qaadan kartaa sanadlaha sanadkaas oo dhan iskama kaa xirayo wax allaal wixii ku jiro o dhan baad dhigan kartaa. optionka saddexaad waxa weeye waa isla koorsooyinkiiyo waa qof koorso un raba laakiin hal koorso oo specifica bas baartaa inaad dhigatid oo laakiin forever waa lifetime marka lifetime lacagta sad bixinaysaa fixedka ah hal mar kadibna koorsadaas weligaa way ku furnaanaysaa. waa qofkii raba koorso specifica waxaan dhan ma rabo hawshaa dhan commitment ma rabo inuu wax gaar oo badan diyaarsho ma rabo just koorso markaa ku taagan bas buu rabaa marka qofka degdegsan oo kale tana anfacaysa laakiin qofka raba inuu si caadi wax u barto billaha ama sanadlaha ayaa anfacaysa. waxaa intaa raacda oo meesha ku raacda waxaa loo yaqaan horta whatsappkan yarkaa batoonka yarkaa waad ku dhufan kartaa anytime si aad degdeg noola soo xiriirtid dhagadaa siisid automatic baa noo tegaysaa falaartan yartaana ku dhufasaa kor ugu noqoto. sidoo kale waxaan kaa iloobay isla videogan laftirkiisa halkan sharaxaada ayuu kusoo geli doonaa haddii ilaah yidhaahdo. waxaan halkaa ku raaca dibloomooyin haddaad dhiganaysid certificationska iyaguna waa same barayska ku qoran markaa ku dhufatid barayska certificationka ku qoran ayaad bixin doontaa taa hadba ku dhufatid. certificationsku waa shahaadooyinka caalamiga ah weeye oo Yurub Maraykan yani Maraykan shirkada Maraykan ayaa bixinaya hadhow anoo tababarkan ku barayna imtixaanka caalamiga galaysa. waxaan marka dul istaagi doonaa optionka saddexaad oo ah optionka ugu weyn uguna muhiimsan oo ah qof raba inuu wax saxa oo dhammaystiran from A to Z barto waana kan. haddaba dibloomada haddaad fiirinaysid qof kastoo raba IT inuu bilaabo computer systems buu ku dhufan doonaa u baran doonaa software iyo hadhow waa aadaysaa ama software ba hadhow aadaysaa ama network ba aadaysaa laakiin marka hore kana baranaysaa waa waajib inaad kan baratid. sidoo kale arday kasta oo raba inuu business aado ama caafimaad aado ama maamul aado waa waajib computer system IT support inuu dhigto sababta amaanta xafiis daartin in ku shaqayso computer lagu shaqeeyaa kan waa waajib qof kasta waajib ku tahay. ardada kale ee raba hal abuurka iyo ganacsiga tan ay aadayaan waayo suuqa laftirkiisa inaa adigu ka shaqaysatid baa muhiima tusaale ahaan annaga saacaddaas aan kula hadlayo 80 qof baa noo shaqaysa oo aan shaqaalaysiinay tiimka yaga iyo hal abuurkan samaynay 80 qof baa alxamdulillah maanta noo shaqaysa. adiga marka waxaad awoodaa business distribution development markaa dhigatid in adiga laftirkaada dad kuu shaqeeyaan ayaad awoodaa marka annaga waxaan ku baraynaa khibrad tobaneeyo ganacsi oo aan bilownay waxaan kuwa kusoo jabnay kuwa ku baaba'nay kuwa noo hagaagay khibrada aan soo wax badan baan ku fahansiinaynaa tan marka waa very important way. tanna waa cilmi baaris sidaa qoraysid saan hore u sheegnay ama buug rabtid inaad qortid qof kasta oo jaamacad dhigtana waajib bay ku tahay inuu dhigto koorsada qof kasta oo raba inuu jaamacad dhigto ama jaamacad dhameeyo waa waajib sababta ah qof maanta degree ama diploma ama master soo qaadanayo aan cilmi baara ahayn waa khasaaro waxbarashadiisu. English proficiency-na waa la socotaa cilmiga maadiga oo dhan baa ku qoran English saa darteed saasay muhiim inoogu tahay waa asaasigii wax walba waa inaad ka hormarisid. financial operationska iyo office accountingka waa qof kastoo raba inuu xisaabaad ama maaliyad ka shaqeeyo waa waajib bay ku tahay iyo dhammaan ardada business administration dhigatoo dhan koorsada waajib bay u tahay iyo qofkii raba xitaa inuu wax maamulo intaba. project management-ina saan sheegnay mashaariicdii waxaasoo dhan baad ku maamulaysaa logistics and supply chain waa isla aragnay. waxaan rabaa marka dibloomooyinka qiimahooda inaan ku tuso marka mid ka mid aan ku dhufan doonaa tusaale ahaan tan aan ku dhufan doonaa marka ka tusaale qaado hadhow taa rabtid ku dhufsa adi view ku dhufo view maraa ku dhufatid halka waxaa arkaysaa koorsadii sharaxaadeeda arkaysaa sidoo kale waxaa arkaysaa inay shahaadada isla bixinayaan jaamacadda iyo macadka weyna isla bixinayaan. faahfaahinta markaa akhrisaa halka markaa aragtid koorsooyinkii baad arki doontaa aa ku dhigan doontid dibloomadaas tusaale ahaan hadda tan oo kale tanaa ka bilaabaysaa tanaa ku xijinaysaa tanaa ku xijinaysaa tan maba furi kartidba annaga kuu diyaarinay si oo kala horreeyeen koorsooyinku tan dhammee tan dhammee tan dhammee adiga jaaniskaada ku xiranta markaa 3 bilood waa ku dhammayn kartaa 6 bilood waa ku dhammayn kartaa ka yar ka badan aday kugu taallaa sidaad micnihii aday ku taallaa sidaad ku dhammaynaysid laakiin muhiimadda waxaa laga rabaa koorso kasta waxay leedahay imtixaan kuwisyo mojulo iyo final exam la geliyo haddaadan imtixaanaha waxaasoo dhan aad wadan gelin wax shahaada ama heli doontid marka waxaasoo dhan ba isku dhigan doontaa waana lagula xisaabtamaya ilaa marka ugu dambaysa aad ka dhamaysid. marka waxa weeye halkaa marka koorsooyin kuwa kalena saas u diyaarsayna waa ku dhufsanaysaa keliya. lacag bixinta waa sidaan dibloomooyinka haddaa aragti flexible kan macnaha 3 jeer inaad u kala bixisid weeye konton 3 kontonaad inaad u kala bixisid tanna waxa weeye 2 half inaad u kala bixisid tanna waxa weeye hal mar inaad bixisid price-ka wuu isbedeli karaa hadhow laakiin concept waxa weeye in 3 half loo kala bixin karo 2 half
iyo fully one time inaad bixiso qaabka ugu fiican waxa way qofku inuu one time iska baxsado sidaasaa u fudud si micnihi culayska uga haro haddaa laakiin laba haf kale bixinayso waa top haddii xaaladda kugu adag tahayna hal mar oo kale yani saddex haf oo kale bixin kartaa yani qayb qayb baa u bixin kartaa sida konto kontokaas oo kale kadib hadda dalbo unbaad ku dhufan doontaa waxa weeye akoonkaadi waa ina abuuratid marka koobaad waxa weeye marka taana account creationkii baa halkaa inooga soo baxayo sidee akoon la isaga diiwaangelin karaa marka hal mar baa xifkaab ku noqonaya haddaa rabtid inaad isdiiwaangelisid meesha start lane ku qoran tahay ku dhufo start lane ku dhufatay halkaa full name magacaada saddexan ku qor taleefankaada oo saxan oo dhammaystiran oo +252 ama +251 haddaa dibadda joogtay plus waxaa magaalada joogta halkaa ku qor emailkaada halkaa ku qor si saxan oo qor waayo waa kaa passwordka username kuu noqon lahaa halkaana waxaad doorataa saddexdaa mar mid haddaa isdiiwaangelinaysid ma course baa rabtaa course haddaa rabtid categoriyaad dareynaysid dooro kuwo badan waa dooran kartaa categoriyaad dareynaysid haddaad dibloma rabtid halkan soo fur diblomada aad rabtid dooro mid waa bilaabi kartaa laakiin hadhow mid kalena waa ku biiri kartaa dhib mala laakiin midda hadda aad rabtid inaad now ka bilowdid ku dhufo haddaad certifications bilaabaysidna certifications tigta saar kadib marka intaan tusaale ahaan kasoo qaado waxaad dooratay dibloma ayaa iska dooratay oo ah tan koowaad ay tahay qof kasta inuu barto systems and IT support basic IT-ga waxa weeye halkaa waxbarashada meesha ugu sarreyso ka gaadhay ku dhufo halkaana da'daada ranjigeeda dooro halkaana password samayso halkaa password ku qorataa password yar samayso ha iska iloobin kadibna ay agree ku dhufo kadibna create account ku dhufo automatically waxaa kuu samaysmi doona username iyo password baa kuu samaysmi doona oo noqon doona passwordka halkaa gelisay iyo emailka halkaa ku qoratay baa kuu noqon doona waxaa gashay saasaana isku diiwaan gelisayba sideedaba marka xifadkaab.com/register ayaa iska diiwaangelisay haddaan rabo marka dib inaad u geshid just login ma ku dhufanaysaa halkaasaad marka waxaad ku dhufanaysaa usernamekaada iyo passwordkaada hadda halkaas si aragtid aniga waxaan geliyay usernamekayga iyo password sign in baad ku dhufanaysaa sidaasaad waxa weeye ku samaysamaysaa user iyo password horta by the way user iyo password inaad samaysatid waa shayga koowaad sababta ayadii ka bilaabanaysaa marka hadda waxaan ku noqonayaa meeshaydii oo ahayd inaan diblomo iska diiwaangeliyo tusaale ahaan tan oo kale marka halkaan aan kusoo laabtay paymentigii baan doortay hadda dalbaan idhi hadda dalbo automatically markaan hadda dalbo dhaho halkaa waxaa arkaysaa PayPal baan lacagta ku bixin karaa ama debitkaygii Visa cardkaan ku bixin karaa by the way qof kasta oo bangi leh bangigaada wuxuu leeyahay debit cardho ayuu bixiyaa ayaa jiray Visa card soo ma ah haddaa waafi leedahay waafigaada wuxuu leeyahay haddaad idahab leedahay dahab plusku haddaad T plus leedahay T plusku mid bixiya haddaad Premier Wallet leedahay kaar buu leeyahay kaarkaadii halkaa gasho xogtiisii wixiisii kadibna save dheh kadibna waxa weeye automatic buu u jaranayaa automatic saas isdiiwaangelin kartaa kaa waa optionka labaad waxa weeye inaadan kanba dooran oo waxa weeye aad lacagta ku bixinaysid EVC saad sahal soo marka EVC waa kan qaabka usoo dir xidig 789 akoonkeeni way halka xirfakaaba kusoo bixi doonta iska hubi halkan waa kan soo maaratid sahal haddaa saad kasoo diraysa wadadan stepskan raac haddaa sahal kasoo diraysa stepkan raac macnaha xidig saas u qor waa mobile money haddaa idahab kasoo diraysid saa raac stepskan raaci lahayd wey marka waxa weeye hadhow wixii aad kasoo dirtay halkaa ka dooro halkaan waxaad ku qortaa lacagta intaad soo qortay automatic weeye automatic halkaan inaad qorto uma baahnid halkaan referencegii lacagta aad kasoo dirtay ama lambarkii sender form lambarka lacagta kasoo dirtay ya lambarka lacagta kasoo dirtay ku qor kadibna submit proof dheh waa haddii aad mobile money dooratid haddii kalena waxa weeye ama PayPal ku bixi ama debit iyo credit cardkaada ku bixi sidaasaad isaga bixinaysaa marka tan keliya ma ahan processkan laakiin waxa weeye taa waa dibloma markaad dooranayso soo maha haddaad dooranaysid waxa loo yaqaano monthligii sidoo kale weeye tusaale ahaan sanadla miyartaa mise bille sanadlan ku dhufsaday waxa weeye sidii uu ku geynayaa 365 bari baa haysataa koorso kastoo cusub oo soo korodhana free bay kuu noqonaysaa waxa weeye pay with PayPal dhag intii oo kale soo maarid saas weeye same procedure marka weeye haddaad single course aad iska diiwaangelinaysidna processkii oo kale ayaad raacaysaa haddii ilaah yidhaahdo kasoo qaad halkaanaan tegay waxaan ku dhuftay koorsadan oo kale ayaan ku dhuftay waxa weeye marka koorsadii markaan ku dhuftay waxa weeye go to course baan dhihi karnaa kadibna waxa weeye inkastoo tan horeyba iigu samaysnayd miya sorry horey iigu samaysnayd marka waxaan raadinayaa koorsa aan ii samaysnayn baan raadinaya insha allah tan oo kale aan ku dhufanaya I think tan lafirkeeda inay isii daysantaan ka baqsanayo laakiin okay so tan ima sii daysana marka koorsadii waa kan balaan baa ku alloon garay kartaa haddii sanadle ama sheeg bille ku ahaa haddii kala buy this course baa leedahay waa koorso keliya qof raba inuu dhigto way qaabkan ya buy this course baad dhehaysaa sidii oo kale kuu geynayaa meeshii marka maxaan kuu sheegay dhowr option baa haysataa ama 3 option baad si guud haysataa waxa weeye inaad koorso iyo category u baratid sidaa jeceshahay si iska furan wax u baratid
inaad shahaado caalami aad diyaarisid, inaad diblooma diyaarisid oo ah qaabka ugu fiican uguna weyn oo shahaado rasmi ana aa heli doontid oo jaamacaddii macadku isla bixinayaan, adigana macnaha aysan waxbarashadii kaa yacsanaanayne isla xisaabtan iyo life classyo joogto ah aad heli doontid oo macallinkii si joogta u wada macaamili doontaan. casharada daawashadooda waa kuwan, jasi courses ma ku dhufan kartaa, halkaana kaaga soo baxaysaa koorsooyadaadii, continue baa dhahaysaa, casharkii halkaas kaaga soo baxaya, markaad dhamaysid mark as complete baa dhahaysaa. waxa weeye halkan marka casharkii kii xigay baad daari kartaa, waxa weeye chapterka dhan waa iska soo logarayn kartaa, kan labaad baa furi kartaa, casharadiisa daawan kartaa, saa u wada wadid marka ugu dambeysa aad dhamaysid halkaas, waxa weye waxaad ka heli doontaa final examination iyo waxyaabaha kuusoo bixi doona iyo kuwiisiya iyo kuusoo bixi doona, badanaa halkaas oo kale ayay kuusoo gelayaan, booska lessenka kuusoo gelaya markaa ku dhufatid. sidaasaa casharada loo dhigtaa, mark as complete baana dhahaysaa cashar kastoo aad baratid. waxaa ku haray waxyaabaha communityga ku haray iyo laabiska waxay gaar u yihiin ardada dibloomada dhigata ama ardayga si gaara u gataa, waayo dibloomada waxaa u talgan ardayga practical labis inuu sameeyo. communityga haddaa ku dhufatid waxaa halkan kusoo qori kartaa su-aal, tusaale ahaan discussionska markaan joogno, sorry backday, discussionska markaan joogno, development yar baa ku socda waxyaabaha yararka insha allah by time aad daawanayso waa la xaliyay. so marka halkaas ask question, halkaasaa su-aashaada ku share garayn kartaa, su-aasha magaceedii, categoryga gelayso business miya matana categoryga gelayso hadday category tahay, hadday iska su-aal general tahay ask question ayaa dhihi kartaa, halkan typekeedaad ku qori kartaa, titlekeeda magaceeda post baa dhahaysaa. halkanna waxaad kala socon doonta kartaa insha allah challenge-yada haddii ilaah yidhaahdo. live sessionaha hadday jiraan ardada dibloomadi wixii lamida ama live session guud, challenge-yadii halkan aad kala soconaysaa. leadership boardskii tartanka ardada sidai u kala sarreeyeen iyo sidai u kala guulaysteen, ardada active-ka ah kuwiisada ka shaqeeya casharada diyaarsha oo aan goongoyn dhibcay ku helayaan haddii ilaah yidhaahdo, oo challengeski wixii loogu talagalana ka qayb qaata. all timeka ardadii ugu badnayd 7 days waa last 7 beri ugdi, marka 30kaasaan ku xisaabtamaynaa iyo 7daa beri waan ku tartamaynaa mar walba oo aan ku bixin doonaa dhibca ku bixin doonaa ama abaalmarino ku bixin doonaa insha allah haddii ilaah yidhaahdo. waxaan rajeynayaa marka si fiican halkaa inaan isula fahanay. halkana de waa profilekaadii oo waxaa kuusoo geli doona insha allah haddii ilaah yidhaahdo xogtaadii iyo guud shahaadooyinkaadii halkaa kuusoo geli doona iyo wixii lamida. halkan waxa weye emailkaadii iyo wixii lamida kuusoo geli doona. marka waxaan rajeynayaa passwordkaadii wixii lamidana waad badbedelin kartaa. waxaan rajeynayaa inaad si fudud aad u fahantay sida la isaga diiwaangeliyo, sida wax looga barto iyo meelaha aad kala aadi kartid oo dhan ee xirfad kaab insha allah. waxaan mar laba sax kugu soo dhaweynaya xirfad kaab, fadlan akhyaarta kale usii share garee muuqaalkan. waxaan rajeynayaa muuqaalkan inuu informative inoo noqon doono ood wax badan kaga faa'iidi doonto xirfad kaab ku saabsan oo dhan.